doorashooyinka dalka Norway ayaa bilowday oo ah doorashooyinka baarlamaanka waxaa la dooranaya wasaaraha usray waddanka ayaa la dooranaya xisbiyo kala duwan halka imaaday marka waxaa la kulmay nin Soomaaliyeed oo ka socda xisbiga hooyada ka socda ayaa la kulmay waa magacaynu bilow xisbiga magaciisa magacaygu waa Ismaaciil Ahmed Maxamed xisbigeena waa Hayre sanadkan waxaan rabnaa inaan guuleysanaa inay ummadda Soomaaliyeed doortaan waxaan rabnaa inay dadka ay ogaadaan inaan sharaxno xushaan sidee u qaad qaran kartaa adigoo xildhibaan ah oo gaadiyanka ah in kan baarlamaanka markaasi dhahalo maya waa muhiim inaad dadka ummadda Soomaaliyeed inay codeeyaan waana muhiim inaan ka qayb galnaa waddankan waana kala degan ummaddeena Soomaaliyeed inay ogaadaan waaye markii oo la dhahaa codkaaga dadka aan u codeysaa qasab waaye oo waa muhiim saad u helnaa dadna matala matalitaankan waa wax muhiim ah marka saas dadkeeda aan maanta intuu istaagsanahay oo dadka ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda kala dhan aan leeyahay inay noo codeeyaan waaye sababtoo waxaan rabnaa inaan xilka aan la wareegnaa sababtoo sanadyaalkii ugu dambeysay waxaan aragnay inay wax walba qaali noqdeen anigu waxaan rabnaa inaan wixii oo qaali inaan qiimada hoos u dhignaa oo iskafkina oo inaan hoos u geynaa bas hadda ugu weyn xisbiga hayraha ugu weyn waxaad rajaynaysaa أنا waxaan u rajaynaa guul aan u rajaynaa laakiin wixii ka horeeya hayr waxa waaye ummadda oo magaalo walba ku nool inay ogaadaan wixii u fiican sanadyaalkii ugu dambeeyay waxaan aragnay haddana waxaan rabnaa mustaqbal inaan u fiirinaa wixii oo noo fiican marka aniga xildhibaan waxaan ka ahay Kristiyaansan haddana Oslo soo gudbay marka saas darteed maanta waxaan inta u istaagsanaa wax kale ma ahan ma sharaxno laakiin waxaan rabaa inaan dadka ummadda Soomaali sheegaa waa muhiim codkeena bixiyo ma laga yaabaa Ismaaciil in mustaqbalka uu baabaaha Norway u sharaxeen waa insha Allah waxay ku xirantaa dadaal ku xirantaa dadaal waa ma tahay doorashooyinka ayaa waxay wadamada ay dhici doontaa sagaalka bisha September ayaa dhacaysa marka waxaan la soo gabagabeynayaa shanta bisha waa midnimo oo idin leh maalmaas